waad salaamantihiin asxaabta kusoo dhawaada barnaamijkeeni 1 by 1 waxaanu kusoo qaadan doono wararka iyo warbiximihii ugu dambeeyey. waxaan wadeegi doonaa heshiisyadii la sameeyey saacadihii ugu dambeeyey kuwa la filayo inay dhacaan iyo xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. aynu ku bilowna sida ay qoreen warbaahinta waddanka Spain. ciyaartoyda kala ah Rudiger, Tchouaméni, Lewandowski, Rafinha, Kise, Pablo Torre iyo Christensen ayaa maalinka bari ah la filayaa inay ciyaari doonaan markii ugu horeysay kulanka El Clasico ee dhexmari doona kooxda Real Madrid iyo kooxda Barcelona. sidoo kale waxaa ciyaartaas markii ugu horeysay xilli ciyaareedkan fooda isku dari doona ciyaartoyda kala ah Karim Benzema iyo Robert Lewandowski. dhinaca kale waxaa soo dhawaatay inuu ciyaartoyga Eden Hazard ka qayb qaato El Clasico-diisii ugu horeysay tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda Real Madrid. oo Eden Hazard sidii uu ugu soo biiray kooxda Real Madrid hal marna muu ciyaarin kulan El Clasico ah oo intii la ciyaarayayba waxa uu ku seegay dhaawac. haddaynu eegnana kooxda Arsenal ayaa si rasmi ah ula soo wareegtay ciyaartoyga ka ciyaara daafaca bidix ee Alexander Zinchenko oo ay kala soo wareegtay kooxda Manchester City. haddaba kooxda Arsenal ayaa ka bixisay ciyaartoygan 50 milyan oo pound waxaana Zinchenko u saxeexay kooxda Arsenal heshiis dhan ilaa sanada 2027. halkaas iyo Talyaanigana sida ay qoreen warbaahintu ciyaartoyga Dybala ayaa markii uu ku soo biray kooxda Roma kadib kooxda Roma waxaa soo galay dakhli aad u badan maalinkii ugu horeeyay ee Dybala. dakhligaas oo ahaa lacagtii lagu iibsaday garamaanta iyo maaliyadda Dybala. haddaba dakhligaas ayaa ku dhawaaday kii ay ka faa'iiday ama kii soo galay kooxda Juventus kadib markii ay la soo wareegtay ciyaartoyga Cristiano Ronaldo. dhinaca kale xaaladda Ronaldo sida la sheegay wakiilka Ronaldo ee Jorge Mendes ayaa mar kale la hadlay kooxaha reer Yurub isagoo Mendes rajeynaya inuu mar kale isku dayo kooxaha Ingiriis ah iyo kooxaha Jarmal ah iyo kooxaha Isbaanish ahba. haddaba Jorge Mendes ayaa weli ku jira shaqo adag sidii uu ugu heli lahaa Cristiano Ronaldo koox cusub. sidoo kale sida la sheegay kooxda Barcelona ayaa diyaarinaysa dalab ay u gudbiso kooxda Sevilla kaas oo ku saabsan ciyaartoyga Kunde iyadoo ay beeniyeen ilaha ka soo baxaya kooxda Sevilla dalabkaas. Chelsea ayaa iyaduna weli ka sugaysa kooxda Sevilla ogolaanshihii ugu dambeeyay tan iyo maalinkii Khamiistii. haddaba ciyaartoyga Kunde ayaa ahaa mid wada hadal kula jiray labada kooxood ee Chelsea iyo Barca labadii toddobaad ee ugu dambeeyay. dalabka Barcelona ay ka gudbisay Kunde ayaan gaari doonin dalabka ay ka gudbisay kooxda Chelsea waayo kooxda Chelsea waxay ka gudbisay lacag badan halka ay kooxda Barcelona ku rabto lacag intaas ka yar. isla kooxda Barcelona ayaa la sheegay inay adag tahay inay iibiyaan xagaagan ciyaartoyga Frank de Jong oo ay rabeen kooxo badan sida kooxda Chelsea iyo Manchester United. dhinaca kale mid ka mid ah wariyayaasha ka ag dhow kooxda Barcelona ayaa sheegay in kadib markii ay kooxda Barcelona ka hor qaaday ciyaartoyga Rafinha kooxda Chelsea oo u dhawaa haddana la filayay inay kooxda Chelsea ka qaaday ciyaartoyga Kunde oo markii hore u dhawaa kooxda Chelsea ayaa waxa uu yiri ma u maraynayo inay kooxda Chelsea marnaba ka iibin doonto kooxda Barcelona ciyaartoygeeda Azpilicueta iyo Marcos Alonso halka ay kooxda Real Madrid dhawaan shaacin doonto heshiis kordhin uu sameyn doono ciyaartoygeeda Eder Militao. haddaba faahfaahinta heshiiska cusub ayaa ah inuu Militao heshiis cusub saxiixi doono oo ilaa ah sanada 2028 halka uu markii hore qaadan jiray sanadkii mushahar ah 3.5 milyan waxa uu qaadan doonaa heshiiska cusub mushahar ah 7 milyan iyadoo ay abaalmarino kale la socdaan waxaana kor u kici doonta qiimaha heshiis jabinta ciyaartoyga oo noqon doonta 500 milyan oo euro. dhinaca kale sida ay sheegeen warbaahinta Catalonia waxaa adag inuu tababaraha kooxda Barcelona ee Xavi ku soo bilaabo kulanka El Clasico ciyaartoyda Pique iyo Ferran Torres halka la shaaciyay garsooraha dhexdhexaadin doona iyo garoonka lagu qaban doono kulanka El Clasico oo waxa dhexdhexaadin doona kulanka El Clasico garsooraha ka soo jeeda waddanka Gambia ee Baboubacar Gallo iyadoo uu ka dhici doono kulankuna garoonka Aligent oo ah garoonka labaad ee adduunka ugu qaalisan. sidoo kale kooxda Manchester United ayaa soo dhamaystirtay kulamadii ay ku ciyaaraysay waddanka Australia. haddaba kooxda Manchester United ayaa waddanka Australia waxay ku ciyaartay 4 ciyaarood 3 ka mid ah ciyaaraha way badisay halka ay kulankii afraadna baraajaysay waxaana kooxda Manchester United 4 kulan laga dhaliyay 4 gool halka ay kooxda Manchester United awooday inay 12 gool dhaliso 4 kulan. sida ay sheegtay warbaahinta Talyaaniga ciyaartoyga Lukaku ayaa rabay inuu sii joogo kooxda Inter Milan inta ka hadhay waayihiisa ciyaareed kadib markii uu ogaaday inay qalad ahayd ku biiritaankiisa kooxda Chelsea. sidoo kale Lukaku ayaa loo sheegay inuu ku laabto hab cunteedkiisii hore kadib markii uu ku soo laabtay kooxda Inter Milan isagoo uu culeyskiisu ka badan yahay 101 kiilo. dhinaca kale iyadoo maalmahan la sheegay inay kooxda PSG rabto inay iska iibso ciyaartoygeeda Neymar ayaa waxa la sheegay inay xaaladda ku hareeraysan Neymar ay sheegayso inuu 100% soo bandhigi doono waxtarkiisa ciyaartoygu sidoo kale uu awoodda saari doono guulaha iyo horumarka kooxda PSG.
isla kooxda PSG oo la xiriirinayay daafaca kooxda Inter Milan ee Milan Skriniar ayaa kooxda Inter Milan go'aasatay inuu kooxda sii joogo Skriniar kadib markii uu Bayern oo ahaa ciyaartoy oo kamid ahaa ciyaartoyda ay diirada ku haysay kooxda Inter Milan uu ku biiray kooxda Juventus halka uu ciyaartoyga kooxda Roma ee Carlos Perez la filayo inuu maalmahan soo socdo ku biiri doono kooxda Celta Vigo waxaana ilaa hadda socda wada hadalada labada dhinac iyadoo uu ciyaartoyga cusub ee kooxda Bayern ee Sadio Mane sheegay inuu sanadkii hore qaatay go'aanka ah inuu ka tago kooxda Liverpool waxa uu yiri waayo waxaan u baahnaa loolan cusub aniga ahaan waa xilligii ugu habboonaa waxaana la hadlay Klopp oo waan u sheegay inaan rabo inaan ka tago kooxda dhinaca kale waxaa la sheegay inay kooxda Roma dib u soo celisay rabitaanka daafaca kooxda Manchester United Eric Bailly iyadoo uu Jose Mourinho uu arko inuu Bailly ku soo kordhin karo wax badan kooxdiisa waxaana la filayaa inay Bailly ku heli doonto kooxda Roma 10 milyan wax ka yar sidoo kale ciyaartoyga kooxda Barcelona ee Memphis Depay ayaa la sheegay inay miiska u saaran yihiin heshiisyo dhowr ah gaar ahaan kuwaas oo ka socda dhinaca iyo horyaalka Ingiriiska iyadoo uu ciyaartoygu wararkaas inkiray halka ay kooxda Barcelona rabto inay ciyaartoygan suuqa dhigto xilli ay kooxda Manchester United ka mid tahay kooxaha ay shaqo haya Depay halka uu madaxweynaha kooxda Napoli shaaciyay sagootinta ciyaartoyga Idris Martinez oo aanu kooxda heshiis cusub u saxiixi doonin ciyaartoygaasi haddaba Idris Martinez ayaa kooxda Napoli waxa uu u ciyaaray 397 ciyaarood waxa uu u dhaliyay 148 gool halka uu caawiyay 90 gool marka la isku geeyo goolashiisa iyo assistiyada kooxda uu sameeyayna waxa isku noqonayaan 238 gool ugu dambeyntii waxaa la soo saaray liiska ciyaartoyda u tartamaysa jaaisada Golden Boy-ga ama abaalmarinta ciyaartoyga ugu fiicnaa ciyaartoyda ay da'doodu ka yar tahay 23 sano waxaana liiskani hal liiski koobaad oo ka koobnaa 80 ciyaartoy haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar subscribe na dheh channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe